laascaanood wada laamiga ayaa loogu magac daray marxuumad hodan naalaye allah u raxmade wadada laamiga ah ee u dhaxaysa cusbitaalka guud ee magaalada laascaanood iyo goolada bartamaha magaalada ayaa loogu magac daray marxuumad hodan naalaye oo 12kii bishan ku geeriyootay magaalada Kismaayo iyada iyo saygeedii Jaamac Fareed maayirka degmada laascaanood iyo xogayaha degmada ayaa si wada jir u sheegay in wadadaasi loogu magac daray marxuumad hodan naalaye si loogu xusuusto hawlihii dhanka samafalka ah ee ay ugu horeyso waxbaridda caruurta danyarta ah ee waalidiintood awoodin inay waxbarasho u diraan mashaariicdaasi oo marxuumadu ka waday gobolada Sool iyo Sanaag ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada laascaanood Cabdi Casiis Xuseen Tarwale marka koowaad anagu horena u dirnay tacsi walaasheen hodan Axmed Saciid Naalaye iyo saygeedii Jaamac Fareed oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Kismaayo horena halkan tacsi aan ugu dirnay hadeena ku celinayno in Ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo in maanta oo taariikhdu tahay 20kii bishii 7 2019 wado kamida wadooyinka laascaanood magaalada laascaanood ku yaala oo ah wadada dhakhtarka in maanta laga bilaabo magaceedu yahay hodan naalaye istreed hadeer wixii ka dambeeyana dadweynaha ku nool gobolka Sool iyo magaalada laascaanood waxaan leeyahay maanta laga bilaabo wadada magaceedu yahay waa wadada dhakhtarka way dhamaatay maanta oo bisha 20 tahay marka laga bilaabo magaceedu waxa weeye wadada suuqa ilaa dhakhtarka isku xidha waxa weeye hodan naalaye road si aan wax xasuusano taariikhda hodan iyo reer Axmed Saciid Naalaye sidoo kale xogayaha degmada ayaa ka hadlaya marxuumad hodan naalaye iyo waxyaabihii lagu xusuusan doono maanta wax weeyaan waxaan ugu magac darnay wadada weyn ee halbowlaha ee isku xidha magaalada santarka magaalada laascaanood iyo cusbitaalka weyn ee magaalada wadadaas ku xidha oo ah wadnihii ama halbowlihii ayaan maanta ugu magac darnay hodan naalaye runtiina wax weeyaan inta iyo in ka weynba weynaga mudan halkan aanu ka cadeynayna mashaariicdii aan ka dhagax dhignay gudaha magaalada laascaanood ee ahaa library ama national library ay dhisayeen hodan naalaye iyo qoyskoodu in iyaduna ay tahay mid sii socod doonta ee ahayn mid ku ekaatay geerida hodan naalaye oo qura sidoo kale xayndaabkii iskuulka Abyan iyo dayactirkiisii waxay kaloo waliba iyaduna mashaariic u soo socota u soo wadaan iskuulo kale oo kamid ah gobolka Sool oo ay kamid yihiin degmooyinka hoos yimaada oo ay tageen dugsiyada hoose dhexe oo ay u fulinayaan agab sida diriisyadii buugaagtii iyo qalabkii kale wax ku baran lahaayeen iyaguna waa u soo socdaan dhawaan insha Allah taala way heli doonaan aad bay noogu dheertahay noogu weyn tahay inaan u tacsiino u ducaynana xaq bay u yeelatay waxaana arinta u sababa bulshada dhexdeeda wixii ay ka qabatay oo u ducaynayna Ilaahay naxariista janno inuu siiyo maanta waxay nooga baantay duco hodan maanta wax kale uma baahna naalaye xaqiiqatan Soomaali meel kasta ay joogto geerideedu aad iyo aad ayay u taabatay geeri naxdin leeyahay geeri aan qulubta ummadda Soomaaliyeed ka dhamaanin ayay ahayd waxay ahayd indeergarad waxay ahayd aqoon-yahan waxay ahayd samafale anu maanta hadaan awoodi lahaa xaqiiqatan masaajid oo dhisi lahaa oo magac dar lahaa ama waa u sadaqayn lahaa sida laajligeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama qurba joogta inay gabadha u dhisaan masaajid kaas oo ay u sadaqeeyaan walaasheen ama maxay hayto yaani samafalihii hodan naalaye iyo saygeeda geeridii ku timid naxdinta lahayd taas oo ay ku fuliyeen dad arxan laawayaal kulli qof waliba laakiin maalin buliyo maalinta dhaaf maayo maalintii loogu tala galay laakiin bulshada Soomaaliyeed meel ay joogtaba waxaan ku arintaas aad iyo aad bay ugu tacsiilaa culimadii Soomaaliyeed baa wax wanaaga u qiray oo inay tahay qof maadaama aanu nahay qurba joogta gobolka Sool ka soo jeeda degmada laascaanood وهالي قرن بياهيد ومدة الصوماليات قبل ويستاكتي هيدا سمافلكا ومدة سمافلكي ده ما دام أنا نهاي قرب شوكته قبل كسول دقمة العانود وحنقول إن هاللوجود ده إذا هذا النالي حبلها أي كم متكتهاي إلى هون حريستو إيوه سؤال عبد الله قالوا وإيدنا حبلها أتاجن مر والبا تابقينتا يدسمها قبل كي دقمة العانود bihaw naxariistee hodan naalaye waxa ay ku dhalatay magaalada laascaanood waxayse ku soo barbaartay waxna ku baratay dalka Canada